بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تنكو الرئيسي وحا نور رحمانيد سؤال أورانيسا ما لزكيني حولها يوحي دلان مالك آد كتجاريسانيس iyo faa'iidadiisa. jawaabtu waxay noqonaysaa haa, waxay xooluhu dhalaan iyo maalka aad faa'iidada ka heshidba waa zakaynaysaa. haddana waxaan galaynaa 17 ee su'aalihii la xiriiray fiqiga. 17 haddii aad wax cuntid ama cabtid adigoo ilowsan, soonkaagu ma kaa jabayaa? haddii aad wax cuntid ama cabtid adigoo ilowsan, soonkii ma kaa jabayaa? maya, soonka ma kaa jabayo haddaad ilow wax ku cunto ama wax ku cabto. 72 si loo soomo intee marag baa loo baahan yahay inay aragto bisha? si loo afurana intee marag baa loo baahan yahay inay aragto bisha? intee marag aragtay bisha ayaa lagu soomayaa? inteese marag ayaa oo aragta bisha ayaa lagu afurayaa? bisha hadduu hal qof oo caadil ah uu arko oo aan faasiq ahayn, waa lagu soomayaa hal qof. waxaase lagu afurayaa 2 qof. waxaase lagu afurayaa 2 qof. 73 waxaad sheegtaa 3 maalmood ay xaaraanta tahay in la soomo. waxaad sheegtaa 3 maalmood oo ay xaaraanta tahay in la soomo. 3 maalmood oo in la soomo ay xaaraan tahay waxa weeye ciida fitriga, ramadaanka ciidiisa, xajka ciidiisa, ciidayn baa la yiraahdaa, iyo maalinta shaki ku jiro. maalintaasna la soomi maayo, iyadana waa xaaraan. bishii waa 30 laakiin lama arkin. in la arkay inaan la arkin daruuraa jira, yoom shaki baa la yiraahdaa. waxa weeye maalinta ma la soomi karo sida nabigeenu faray calayhi salaatu wassalaam. 74 ma taqaanaa dadka aan loo ogolayn inay soomaan? mase taqaanaa dadka loo ogol yahay inay afuraan? ma taqaan dadka ay xaaraan ka tahay inay soomaan iyo dadka loo ogol yahay way xalaal u tahay inay afuraan? dadka aan loo ogolayn inay soomaan oo xaaraan ay tahay inay soomaan waa qofta xaydka qabta iyo qofta nifaaska qabta oo dhashay, ilmo dhashay oo saas oo weli ku jirta nifaaskii. labadaas xaaraan bay ka tahay inay soomaan. waxaase loo ogol yahay inay afuraan dadka soo socda: qofka safarka ah 1, qofka jiran 2, qofka jiran iyo qofka sooman iyagana waxaa loo ogol yahay inay afuraan oo muxuu ahaa iyo qofka weyn oo macnaha cumri ah oo aan soomi karin. 3daasba waa loo ogol yahay inay afuraan. kuwana waa qalaynayaan oo labadii hore iyo labadan kaleba waa afurayaan, laakiin qofka weyn iyo qofka jiradiisu ay tahay jiro oo aansan ka bogsanayn waxbay bixinayaan. maalin walba mud bay bixinayaan ama sacabka, labada sacab wax la eg oo cunno ah. 75 qofka gabowga ah oo cimri ah iyo qofka jiro aan rajo laga qabin inuu caafimaado
maxay bixinayaan. qofka gabowga uu qabtay oo aan soomi karin iyo qofka cudur uusan ka kacaynin loo malaynayo inuu qabo maxay bixinayaan. saynu su-aashii hore ku soo sheegnay waxay bixinayaan mud bay bixinayaan oo ma garanaysaa maalin kasta mud bay bixinayaan ama qof miskiina ayay quudinayaan. 76 muxuu samaynayaa qofkii afura maqribka hortiisa intaan weli la adamin tuu u malayo in la adamay. muxuuse samaynayaa qofka fajrigii isagoo wax cunaya ogaaday in fajrigii uu dhashay laakiin u malaynaya weli inaan waagi baryin. muxuu samaynayaa qofka afura maqribka hortiisa intaan la adamin isagoo u malaynaya in la gaaray. ama muxuu samaynayaa qofka isagoo suxuuranaya is arkay iyadoo fajrigii soo baxay laakiin u malaynaya weli inay habeen tahay. labadaas qof waa la kala qaadayaa. qofka hore wuu qallaynayaa lianna waxa weeye maxaa soo socday maalinimaa soo socotay oo soonkii baa baaqi ahaa marka waxaa la rabay inuu hubsado. laakiin qofka labaad afkiisuu qabsanaya soonkiisuna waa u jiraa maxaa yeelay habeen baa lagu jiray. habeen haddii lagu jirayna weli habeennimadii buu inuu baaqi ku yahay u haystay. kaas markaasuu afkiisa xiranayaa soonkiisuna waa u jiraa. 77 haddii qof xaaskiisa u tago maalin ramadaan ah maxaa waajib ku noqonaya. qof hadduu u tago xaaskiisa maalin ramadaan ah maxaa waajib ku noqonaya. qofkaa isaga ah waxaa waajib ku noqonaya inuu addoon xoreeyo hadduu hayo. hadduusan hayn inuu 2 bilood oo isku xiga soomo oo aan kala go' lahayn. hadduusan karin 60 qof oo masaakiina inuu quudiyo. laakiin taas waxay gaar ku tahay ninka ee qofta dumarka ah lagama rabo camalan bilxadiisi. nebiga xadiiska calayhi salaatu wassalaam ninkii uu saa uu faray laakiin uusan dhihin xaaskaagana intoo kale laga rabaa. 78 goormaa fadli badan in la afuro goormaase fadli badan in la soomo. in la suxuurto baan ka wadaa. goormaa fadli badan in la afuro goormaase fadli badan in la suxuurto. waxaa fadli badan in loo degdego afurka. in loo degdego afurka macnaha maqribka laga hormaro ma aha. markaad hubsatid in uu gabalkii dhacay oo maqrib la gaaray marka inaad hore u afurtid baa fadli badane. si dadka qaarkiis yiraahdaan xidigaha iyo shiicada iyo xidiguhu ha soo baxaan iyo aan la oran. waxaana fadli badan in dib loo dhigo suxuurta ilaa fajriga ay soo dhowaado. 79 sakada fidrada la yiraahdo ama sakada jirka intee la bixinayaa. sakada fidrada la yiraahdo ama jirka sakadiisa oo ramadaanku markuu dhammaado la bixinayo intee baa la bixinayaa. waxaa la bixinayaa saac oo quutul qaalibka cunada dadkaas ay cunaan. dad baa meel degan cunay quutul qaalib oo ay cunaan. cunadaas ay had iyo jeer loo badan yahay oo la cuno baa lagu bixinayaa. waxaana la bixinayaa saac qiyaastiina waa 2 kiilo iyo 600 oo garaam iyo markaa ugu badisid 3 kiilo baa qof walba laga bixinayaa. ilmaha yar qofka weyn addoonka kulligood waa laga bixinayaa. 80 zakada fidrada lacagna lagu bixin karaa. zakada fidrada lacag ma lagu bixin karaa.
وسؤال علماء اسكو خلافان آدي آدنا لوغا مرمو لكن الدين لغو دقماي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لغو ما بحين كرو وحان عنا أهين لغو ما بحين كرو وحان عنا أهين وحان دليل كوغو نبي وقت يسي لعق واجرتي ذهب نواجري ما أوصل لهم كبحية وحو يري ساعا من بر أو ساعا من شعير أو ساع بوشيغاي ساعنا قدر كيس مركي لا قياسه ولا بكيلو يبر إلا 3 كيلو واحد من